بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مقعي واحد هذا محمود بوس. تخصصي هو مارين انجينيرينج. waxaan wax ku bartay dalka dibadiisa muddo badan oo ku soo shaqeeyay badda iyo maraakiibta oo ka gaaray darajada chief engineer ka leeyahay oo halka ugu sareyso engineer ka gaaro maraakiibta waxaan ku beegan waqti aan jirin dad aqoon leh badda markaan soo dhameysay waxbarashada dibadda ka soo dhameysay waxaan ahay dadka ugu horeeyay oo la wareegay maraakiibtii Soomaaliya marka dawladda hore lahayn jirtay waanu hananay runtiina waxa laga baahi baxay ajnabigii markibtii Soomaaliyeed wadi jiray maanta tiiba ka taagan wadankeena Soomaaliland markibta aanu leenahay inta badan markibeen dad ganacsata ah dadka ka shaqeeyana boqolkiiba 80 waa ajnabi marka baahi baa jirta shaqo oo loo baahan yahay dad xirfadlayaal ah oo xagga gacanta ah oo ka shaqeeya maraakiibta si loo maarmo gacmaha shisheeye oo ka kharash badan kuwa dalka jooga marine engineering muxuu yahay marine engineering waa qayb ka mid ah mechanical engineering marka hore engineering mostly isku mid marka dambe si kala baxaan mechanical iyo aeronautical iyo locomotive iyo xataa civil engineer ku sidoo hore la mid marka basics kala hadlayo laakiin waxa qof loo diyaarinayo mechanical engineer oo kale ah oo dhinaca badda ah marka waxa la yahay marine engineering waa shaqo aad iyo aad u wanaagsan shaqo lagu ma waayo qofka bartaana shaqo weligii ma waayo qofka gacmihiisu dahab noqonaya weeye shaqadiisuna kuma koobna wadanka waa shaqo caalami ah meel kasta adduunka shaqo looga baahan yahay aad u shaqayn kartaa marka suuqaaga shaqadu waa caalamka oo dhan meel kuma koobna wadan gooniya iyo meel gooniya maanta maraakiibteena waxa laga keenaa dadka Thailand waxa laga keenaa Myanmar waxa laga keenaa Hindiya Sri Lanka dul badan baa laga soo qaata marka waxa soo wala bixi lahaa yaa gali kara jaamacadda waxa gali kara qof soo dhameeyay secondary school waliba xisaabta physics science-ka waa marine engineer waa maada adag u badan xisaabaad physics qof ku wanaagsan waa ku fiican waa maada walba xisaabaad baa soo galaya afka Ingiriis waa muhiim luqadda badda laga hadla caalamka hadii la yiraahdo luqadda Faransiiska ama Isbaanishka waa number 2 ama number 3 iyagu af Ingiriis ku hadla markay badda ku jiraan marka luqadda adduunka laga hadlo af Ingiriis marka af Ingiriis waa muhiim in qofku Ingiriis fiican yaqaan hadii ka isku xilimaysan meel walba dad jiba oo shaqeynaysan dikayaad gelaysa dad isbarbarad dalbanaysa dad engineerka ku imaanay marka xumaado marka daraado gashid afka waa muhiim Ingiriisku taas waa taa ujeedada kulliyad waxay ahaayeen in laga baahi baxo anagu markaan asaasaynay sida kabta cali sheegay aanu dibadda ka soo noqonay waxa baahida horta marka waxa noo muuqatay inaanu loo baahay wax naga bedela oo anaga mar baa jirin lagu baraaray oo aan warakibtii wadi jiray Soomaalida laakiin maanta dadkii inkastoo marka markii dawladdu lahaan jirtay laakiin maanta dhibaato ka haysto dadka markibta leh in shaqaale helaan tayo leh ninka ajnabiga isoo jooga bukooriyaan waraaqaya mashaakil buu sheeganaya kontaraagiisa jabinaya oo kulliya hooyaday baa dhimatay ama baa dhintay ama xaaskay baa dhintay ku qasbatay inay soo shaqada ku jira oo bedelkiisa sayna diyaar sartid marka baahida keentay waxa weeyaan koow anoo aragnay dad bedelaan wadanka ka jirin oo maanta markibta hanan kara shaqadii wadanka ku baahan yahay oo dhintanayo ah waayo maraakiibtu waxa istaraatiijiga weeyaan waxaanu cunno dibadda ka keensanaa hadaynu maraakiib jirin dawlad xoolo waqti balahayn Soomaaliland waa taqaan maanta maxaanu cunno la soo baxno waxooda dibadda ka keensanaa waxay cunaynay inkastoo wax aan wanaagsaneyn مثلا marka waxaan helo maraakiib aynu leenahay oo daboola baahida wadankeenu u baahan yahay xaga ganacsi qaada xoolaheeni aynu dhufeenay keena wixii aan u baahnay shaqada waasaan sheegay qof fursad shaqadu aad bay banaan yihiin way badan yihiin waa la heli karaa hadii waliba hay'adaha qabisan dawladdu ay baaraan takuleeya maraakiibta wadankeena ka gooshta kuwa xoolaha gura kuwa shaqada gura kuwa konteenarada way dawladdu ku qasbi kartaa inay dad qaadaan
shaqadu waa shaqo muhiim ah lacag fiican baa laga qaataa mushaariif fiican baa laga qaataa qofku waliba intuu dhalinyarada yahay oo shaqo aad u wanaagsan marka xaas cawrimaada xoogaa laga yaabo qof waliba marmar warwaro dabada ku maqayay reerka laakiin inta la yahay shaqo aad ka wanaagsan oo laga shaqeeyo ma jirto maxaa baahiyaasha jira meesha waxa weeyaan iminka kuliyadda qaybta engineeringku horta engineerku waa ka qaalisan yahay waxbarashada kale haddaan IT baranayo ama business baranayo ama management baranayo laptop iyo book baan u baahnay bas taas oo inta kale macallin bay akhriyaya laakiin engineering waxa loo baahan yahay workshop qaali ah laboratory qaali ah ninkii maanta inta soo qalab abu isticmaalaya oo khasaaro waxba ku bartay oo la tuurayo buruu qoraya nooc walba leh aluminum wax nooc steel wax walba wax ku baranayo injineer furfuraya oo kharibaya oo hagaajinaya marka laga yaabay in ninkaas kuma kuna dooro ku baxdo gabiisaba aqoontiisa qofka kaliya marka la barayo engineerka maadooyinka loo dhigi doonaa waxa way u badanayaan horta maadooyinka engineering ah waa farsamo marka runtii hadda ma ka sheego laga dadka inta ma fahmin waxa way maadooyinka xisaabta iyo physics-ka iyo chemistry waa basic hore ka baa la baraya engineer drawing-ka sax loo sawiro waa la baraya waxa la baraya qaybaha biraha ama aluminum ahaadeen ama steel ahaadeen biro dhan baa la baraya waxa la baraya sida loo qoro la baraya si loo form loogu sameeyo la baraya waxa baray engineerska markii hore u socdo makiinadaha marka ku socdo marka engineer kaliya ma ku socdo ma xawayaan ilaa wiishashka ilaa baruusinada ilaa wax walba ilaa leydkii wax walba iyaga la baraya qodob engineerska iyaga hadhow ka shaqeynaya hadii deega xagga sare marka wax ka xumaadaan isaga sameeyay hadii engineer meel kasta isaga engineerka marka waxa la baraya pneumatics wala baraya naqasadan cilmiga naqaska oo ku shaqeeyo compressed air waxa la baraya hydraulics waxa la baraya electricity waxa la baraya dynamics waxa la baraya mechanics waxa la baraya statics waxa la baraya thermodynamics waxa la baraya engines ka nooc waxa la baraya gas turbine ko daro ku socon markii qoso gas turbine ku socon steam turbines la baraya waxa la baraya boilers ka biyo ku leeyahay oo loo baahdo oo markii ku socotaan saliid culus ku socdaan oo intaan injiinka aanu shidaalkaas injiinka tagin balkooyna 100 degree baa la geenaya ba boilerski baranaya wuxuu baranayaa bombiska wuxuu baranayaa compressorska wuxuu baranayaa waxa fara badan weeyaan laba ma soo koobi karo marka waxaanu ku waaynayaa inaad soo doorataan qaybta engineering. Assalaamu alaykum.